guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Ragga iyo haweenkuba labaduba sare ayay u qaadi karaan fursadda noloshooda ay ku dheelaan lahaayeen, oyna ugu noolaan lahaayeen nolol caafimaad leh iyaga oo hela baaritaanno caafimaad. Baaritaannada waxay taraan in cudurrada horey loo ogaado marka ay sahlan tahay in la daaweeyo. Baaritaannada la soo jeediyey waxay ku xiran tahay da'da shakhsiga, jinsiga, iyo halis dhaliyayaasha shakhsiga. Qof kasta waa inuu si joogto ah isaga baaraa cadaadiska dhiigga, si sanadle ahaan u qaataa tallaalka hargabka, oo in si joogto ah takhtarkoodu baaritaan ugu sameeyo. Bil kasta ragga iyo haweenkuba waa inay iyagu iskooda isu baaraan, isagoo qofka jirkiisa ka fiirinaya sida barar, dhaawac, iyo isbeddello shuuq ama dhibacyo baroon ah oo dhanka jirkooda ah. Kuwan astaamo kansar ayay noqon karaan. Dhammaan haweenka oo dhan sanadkiiba hal jeer waa in baaritaanka haweenka oo buuxa ay iska sameeyaan. Maalinta ballantaas, haweenka takhtarku waxay kala hadli karaan baaritaannada ay kula talinayaan inay isku sameyso. Raggu waa in takhtarkooda ay weydiistaan goorta loo baahan yahay inay isku sameeyaan baaritaanka testosterone, inay iska baaraan cudurrada galmada la xiriira ee la iska qaado, iyo baaritaanka dhiigga ee PSA, kaasoo ka caawin kara in la ogaado cudurka kansarka shuunleyda. Dadka kuwa sigaarka cabba waa inay si joogto ah raajada xabadka ama shabka iska soo qaadaan, iyo dadka ay da'doodu ka weyn tahay 60 sano waxaa dhici karta inay u baahan yihiin in laga soo baaro cufnaanta ama cufnaanshaha lafta. Dadka qaangaarka ahna sidoo kale waxay u baahan yihiin tallaalka. Dadka ku firfircoon dhalmada ama dibadda u safra waa inay iska tallaalaan beer xanuunka A iyo B. Ragga iyo haweenku labaduba waxay u baahan yihiin inay iska qaadaan baaritaanka raajada ee EKG, in laga baaro cudurrada wadnaha, iyo baaritaanka colonoscopy si kansarka mindhicirka looga baaro. Takhtarkaagu wuxuu kuu sheegi karaa da'da la doonayo in baaritaannadan lagugu sameeyo. Baaritaannada lagugula talinayo intooda badan waxaa bixinaya caymiska caafimaadka, laakiin mar kastaaba horeyba iska weydii qarashka inta uu yahay. Si aad ugu noolaato nolol dheer, nolol caafimaad qab, waxaa aad muhiim u ah in dadka qaangaarka ah oo dhan baaritaannada lagula taliyo ay iska soo baaraan oo ay qaataan hab nolol caafimaadaysan. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.